maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhiya, waa maalin aynu xusi doonno sanado badan oo soo socda insha allah. ugu horreyn anigoo afka xisbiga ku hadlaya waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo telefishinka SABC TV, bahda saxaafadda Somaliland guud ahaan oo barta nala joogta oo si sharaf leh uga shaqeynaysa shirka oo runtii kaalin mug iyo miisaan la muuqaalada madasha tabinaya. waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa anigoo afka xisbiga ku hadlaya tiimkii soo abaabulay brotokoolka labada cisho shaqaynayay ee halka kani ka shaqaynayay. waxaan sidoo kale aan u mahadnaqayaa oo doonayaa si gaara inaan ugu mahadnaqo xogayaha guud ee xisbiga oo runtii 10kii cisho ama bishii ugu dambeysayba ku howlanaa qurxinta shirkan. intaa kadib waxaan isleeyahay shirkeennan maanta hawsheenu u fadhino waynu garanaynaa. soomaalidu marka hore qof bay cumaamadaa ama qofof bay cumaamadaa, laakiin ducada inta badan waa laga tagaa. hogaamiyaha aynu wadno cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo ku-xigeenkiisa maxamed cali aw cabdi, doctor maxamed cali aw cabdi, waxaynu ilaahay ka baryaynaa maanta dooranayaal aynu diranayno weeyaan inaynu ducaynay wax kastaba ka qiimo badan. xil culus oo Somaliland oo dhan ay eegayso oo aynu doonayno 4 milyan oo Somaliland inay u adeegaan oo cadaalad iyo sinaan iyo horumar iyo midnimo ay ugu adeegaan baynu rabnaa. marka ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu ilaahay ka dhigo kuwa maraga iyo markhaatiga ugu furayna aynu nagu hoojin, kuwa dalka u shaqeeya, kuwa dadka u shaqeeya, kuwa horumar gaarsiiya. waxaan isleeyahay inteena meesha joogtay 300 oo qof ah, cid kastaba maanta xor bay tahay, cid qasbaysaa ma jirto. qof kastaba go-aankiisa qofeed iyo doonistiisa iyo rabitaankiisu bartan ku fadhiyaa. cidduu cumaamadii cidduu dooranayaana waa nimanka hayinka ee idaabta leh ee akhlaaqda leh aynu wada jecelnahay ee garbahaynu ka taagannahay. marka dee dhacdhac kulle uu iska jirayey mujaahidila meeraysaa golaha dhexe fadhiya berigii madheeraanu ka soo baxnay. halkudhigii labaad ee lahaa waxay ahayd u dhaqaajin mayne fulaha beesha ka adkaysta. markaa guddoomiyaha iyo musharaxiisa waxaa lagu dhaqaajin mayne fulaha beesha ka adkaysta. intaa kadib aad iyo aad baad u mahadsantihiin. anigu de kelmadda mahadnaqo baa laga soo kiciyana saxaafadda waa mahadnaqo, odayaashana mahadnaqo. de markaynu cido dooranana maanta 400 baa barta lagu fadhiyaaye anna xildhibaan baan ahay aan ka faa'iidaystay 400 min konton haddaan isiisaa 10 kun oo qof de annaga ku dara aad baad u mahadsantihiin.